الدنيا دواريريو والويل إيو ديباتيو الله يبدناي daawadayaal idilhaantiinba waa mar kale iyo barnaamijyadii aynu soo tabin jirnay. daawadayaal barnaamijkana aynu haynaa waa xog ku saabsan mataqaana aqoonyahankaaga, balse waa kuma aqoonyahankaaga maanto. nasiib daro maba taqaanida aqoonyahankaaga, haddaba baro aqoonyahankaaga. intaananu barnaamijka u gudagelin subscribe si aad ula socotid qaybaha dambe. الدنيا دواريريو والويل إيو ديباتي xog ayniga diyaarin aqoonyahanka weyn ee Cabdilaahi Muuse Qaalib. haddaba waa kuma Cabdilaahi Muuse Qaalib? Cabdilaahi waa aqoonyahan weyn kuna weyn dalkani Somaliland. Cabdilaahi waxa uu ka tirsan yahay macallimiinta ugu tunka weyn leh dalkan Somaliland. haddaba halkuu ka soo jeedaa aqoonyahanku? Cabdilaahi waxa uu ku dhashay degmada Farweyne sanadku markuu ahaa 1954. Cabdilaahi waxa uu ku barbaaray kana galay dugsigiisii hoose magaalada Arabsiyo. Cabdilaahi dugsigiisii sare waxa uu ka galay magaalada Burco. Cabdilaahi marka ka sii dambaysa waxa uu sii korayay jaranjarada cilmiga. waxa uu dhameeyay dugsigiisii sare waxaana uu jaamacad ka galay marka ay ka dhisnaayeen jaamacado Xamar. waxa uu ka galay jaamacadaha Xamar ku yaala mid ka mid ah, waxaana uu ka dhigtay amba uu ka dhameeyay electrical engineering. Cabdilaahi waxa uu marka ka sii dambaysa si hananayay cilmi kororsiga aqooneed. Cabdilaahi waxa uu dhameeyay jaamacadiisii labaad ka galay wadanka Hindiya, kana bartay kulliyadda loo yaqaano education amba tarbiyatu wa tacliin. aqoonyahanku waxa uu ka bilaabay halka shaqadiisii macallinimo. aqoonyahanku waxa uu soo laabtay wadankiisa una kana furay goobo waxbarasho. aqoonyahanku waxa uu marka ka sii dambaysa uu ku fikirayay in uu soo saaro arday tayo leh bedeshana booska uu taagan yahay. aqoonyahanku waxa uu imika ka tirsan yahay maamulayaasha ka mid ah maamulayaasha dugsiyada ku yaala Somaliland. aqoonyahanku waxa uu sanad waliba soo saaraa arday tayo leh. aqoonyahanku waxa uu imika ka maamulayahay iskuulka lagu magacaabo Abu Hurayra Secondary School. Abu Hurayra waxa uu ka tirsan yahay dugsiyada hormoodka waa Somaliland. Cabdilaahi waxa uu weli ugu jiraa in uu soo saaro arday tayo leh, wuxuuna u qabataa dalkooda hooyo. Cabdilaahi waxa iskuulkan u dhisay ardayda uu wax soo baray tacabna geliyay. Cabdilaahi weli kama fadhiisane, waxa uu soo saaraa arday sanad waliba. halkaasi waxa inoogu dhammaaday xogtii ayniga diyaarinay aqoonyahanka weyn ee Cabdilaahi Muuse. الدنيا دواريريو والويل إيو ديباتيو الله يبدناي